solution wanaagsan akhyaarta waxaanu ka hadli doonaa insha Allah qaybtii labaad oo ah essential graphic design tools and softwares. marka muxuu u baahan yahay qofka graphic designer ka raba inuu noqdo software-rada ayuu ku shaqeynaya. markii la yimaado software-rada aad bay u badan yihiin, laakiin se waxa ugu caansan tusaalahan kuwan Photoshop oo aad ku sameyn doonto photo editing software, waxyaalaha editing-ka iyo waxyaalahaas aad ku adeegsan doontaa. haddaynu u nimaadno Illustrator-ka oo ah Adobe Illustrator, waxaad ku sameyn kartaa logooyinka iyo waxyaalaha factor-ka u baahan oo aad rabto inaad quality-giisa ilaaliso. InDesign-kana layout-ka waad adeegsanaysaa iyo buugaagta iyo printer-ka waxaa looga baahan yahay badanaa. marka kuwa ka jaban baa jira, kuwan xoogaa u yar qaali, laakiin se crack baad ku heli kartaa oo badanaa Soomaali saas ku isticmaashaa. haddii aad rabto inaad gadatona shirkadda Adobe ayaad ka helaysaa website-keeda. waxaa loo sameeyaa maxaa la ardada discount iyo waxyaalahaas loo sameeyaa. marka haddii aad awooddo waad gadan kartaa, haddii kalena si crack ku heli kartaa oo jaban. kuwa kale ayaa jira oo loo Infinity Photo oo loo isticmaalo photo editing software, Infinity Designer oo ah factor software oo logooyinka waxyaalaha quality la rabo in la ilaaliyo. mid la mid ah baa jira Adobe InDesign oo ah Infinity Publisher oo loo isticmaalo layout software. marka layout-ku waxa weeye waxaad u baahan tahay tusaale ahaan inaad book samayso waxyaalaha kanaad ku sameynaysaa iyo kan. sidoo kale waxaa jira free options oo tusaale ahaan applicationo free ah baa jira aad isticmaali karto. photo editing softwares haddaad u baahan tahay GIMP mid la dhaho baa jiro free ah. Inkscape waxaa loo isticmaalaa software-rada waxaad rabto tusaale ahaan factories ahaan inaad u samayso sida logooyinka iyo waxyaalaha aad rabto inaad quality-geeda ilaaliso ayaad u isticmaalaysaa Inkscape. laakiin si kuwan uma baahnid sababtoo ah kuwan ayaad free ku heli kartaa. okay, Canva ayaa jira mid la dhaho oo waxaas oo dhan isna soo koobaya flyerada, posterada, bannerada, waxyaalahaas oo dhan aad ku samaysan karto oo isna drag and drop badanaa dadka kanay adeegsadaan dadka ka caajisaya inay noqdaan tusaale graphic designer farta ka xiran. Canva wax ku soo sameynaya kadibna wuxuu ku leeyahay graphic designer baana. Canva moogtahay awood saus badan ma laha, wax diyaarsan u baasan sameynaysa. laakiin si Photoshop-ka from scratch ba ka bilaabaysaa, kuwan oo dhan from scratch ba ka bilaabaysaa. marka haddii aad rabto inaad moogtahay shaqo qabato waxaa fiican inaad si dhammaystiran u qabato. marka inaad isqiyaamayso ma fiicna. waana adeegsan kartaa waxyaalaha tusaale degdeg ah oo adeegsan kartaa, laakiin se markii aad shaqo real aad rabto inaad qabato kuwan ayaad adeegsanaysaa insha Allah. okay, Adobe Photoshop haddaynu eegno, Adobe Photoshop waa badanaa waxaynu u adeegsanaa photo editing software weeye. wuxuu isticmaalaa wax la dhaho pixel oo badanaa waxaa lagu edit karayaa footada. sawirada ayaa lagu edit karayaa, sawirada ayaa la isugu keenaa, laayro waxa loo baa la adeegsadaa. course baa jira aynu ka sameynaa Adobe Photoshop oo yaala website-keena. marka waad ka helaysaa insha Allah. waa course dhammaystiran, qofka waliba aad wuxuu anfacayaa qofka bilowga ah. qofkii hore u yaqaanina wuxuu ka helayaa waxyaalo badan oo moogtahay u sahlaya inuu graphic designer xoog badan u noqdo. waxyaalo badan baynu kaga hadli doonaa insha Allah. waxaa jira Adobe Illustrator. Adobe Illustrator kan muxuu ku faa'iideynaya? isagu waa factor based software. waxaa lagu edit karayaa logooyinka, waxyaalaha quality-gooda la ilaalinayo. marka loogada tusaale ahaan meelo badan baa loo isticmaalaa, siisas badan baa loo isticmaalaa. marka haddii aad rabto quality-geeda inaad ilaaliso waa inaad factor ahaan u samaysaa. okay, Adobe InDesign baa jira. Adobe InDesign maxaa isaga lagu sameeyaa? waxa lagu sameeyaa waxyaalaha print media sida dokumentiyada, annual reportska, magasiinada, waxyaalahaas oo dhan ayaa loo adeegsadaa. isagu marka buugaagta iyo waxyaalahaas lagu sameeyaa. marka qofka graphic designer-ka noqonaya waa inuu saddexdan si fiican u yaqaanaa. gaar ahaan waa inuu aad u yaqaanaa Photoshop-ka iyo Illustrator-ka. InDesign-ku waxa uu yimaadaa labadatan marka si fiican u soo barato. isaga InDesign-ka soo iska fudud yahay. waxaan aad soo adeegsanaysaa ayaa isu keenaysaa, kadib InDesign-ka waxaad arkaysaa inuu aad u fudud yahay. marka waa inaa labadan si fiican isaga soo dhistaa. okay, marka isna intaasinu kusoo koobaynaa insha Allah. guuleysta.